abaartu waa mid sii daba dheeraatay dadkuna waa kuwo ka jilicsan sidii hore waxaana ka muuqata duruufo adag oo la soo darsay noloshooda xanuuno joogto ah gaajo iyo haraad isbiirsaday ayaa dhulka dhigay waayeelkii iyo dhallinyaradii reer miyiga ahaa ee isugu yimi deegaano ay kormeer ku samaynayeen guddida abaaraha ee heer qarani waxaana intaasi u dheerayd bakhtiga iyo macaluusha xoolahoodii oo intooda badan ay joogsadeen ilhaan maxamed jaamac wasiiradii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada haatanna ka mid ah guddida abaaraha ee heer qaran iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka togdheer xasan mataan ayaa kormeer kuurgalida ku tegey deegaano ka tirsan gobolada togdheer iyo buuhoodle waxaana ka mid ah deegaanadaasi qabri huruul qorilugud coodanle warcibraan iyo baledhiig kuwaasi oo ay isugu yimaadeen dadka ay abaartu saamaysay ee ka soo guuray gobolada bariga somalilan intii ay safarkaasi u kuurgalidda ku jireen ayaa waxay warbixinno ka dhegaysteen dadyowga deegaanadaasi halkaa coodanle ilaa qorilugud ilaa kalshaale intii ugu liidatay ninkii carari karayay uunbaa 10 gaadhaa guuray wixii kale ninkii ladnaa ee ama dibad lacag looga soo dirayay ama gaari lahaa ayaa ilaa boosaas waxaan u sheeganaa Somaliland oo u sheeganaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo guddida abaaraha u sheeganaa ilhaan nagala joogto in dadkii yaalo oo coodanle iyo qurub dhexdooda kalshaale goblo magan inta ay waran yihiin 8 reer lacagtoodiina $1 bay noqotay $2,200 iyo $258 ilhaan baa soo dirtay gacanteeda ka soo dirtay waxa kale oo aanu rarnay oo ilaa diraato reereynay 15 reer oo ah aanu 5 isu saarnay oo gaadhigiina sheekeeyay ugu yeedhnay oo aanu oog iyo geynay badweyn iyo aanu geey waxaan u sheegayaa qolada dawladda iyo qolada guddida abaaraha in ummadii halkan isugu tii makhluuqii uu kala badmay badna guuray badna yaalo waxa imika yaalaana ay u baahan yihiin in lagu soo ururiyo meel wixii ay xooluhu ka liitaan ka dhamaadeen iyo wixii hadii ay la kuriyaan wax markaa nacfiyaba haysanba sidaas aan qolada guddida abaaraha ku ballanay imikana ilaa 12 qoys baan doonaynaa inaanu halkan ku soo dhaweyno biyaha hadda halkan waxa yaala 600 oo qoys baan maalin aan kulis garayna dabeetana qolo kalena waxay noo sheegtay ilaa 20 qoys oo aan markaa ka boodnado kuwa imika baydhsan ah ee noo sheegay ka waxa weeyaan warbad idinba waa ogtiin wali taunta idin kama waroonin marte oo hala aragte oo dadka aragte ee baahidu waa tahay idin muuqato sagiya maalkiisu waa isku baahi maalkii uu ku baahi biilahaydii haystay meesha la digay iyo isagii waa isku baahi waxa ugu sii daran waxa weeye qofku ama waa seexda ama waxa weeye cid baa nafta kula carraama caataaba haduu doono siin baabu yeelay waxa ugu sii daran waxa weeye waa biyaha taasna waa caynka waxaan leeyahay dadkan qayla dhalaan baan nahay waa qaylina hal la soo gaaro biyoy baan leenahay hal laga soo gaaro naga sii xun yihiin halkanna imka aad bay u saameysay abaartii dadkii iyo xoolihii wixii uu hayay way isla liitaan intaasaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye xasan mataan oo kamid ah waftigani kormeerka sameynayay ayaa ka warbixiyay xaaladda biyalaaneed ee ka jirta deegaanadaasi oo aanu halkan u maraynay kormeer bal inaanu ogaano xaaladda abaareeda waddanka ka jirta ee halkan aanu kula kulanay dad haraadan oo meel leexsan yaal oo weligood yidhi maanu arag biyo iyo wax taratoona ilhaan maxamed jaamac oo ka tirsan guddiga qaranka abaaraha iyo anigoo kormeer aanu ku maraynay eriyadan waxaanu runtii ku wareejinaynaa booyad biyo ah beel degan eriyadan meel ka mid ah oo yidhi weligood sheegtay ahna dadkii soo guuray ka soo guuray garadag ama sanaag oo yidhi weligayo biyo maanu arag markaa odayaashaanu ku wareejinay biyahan ilhaan maxamed jaamac wasiiradii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa markii ay soo afmeertay kormeerkaasi waxay baaq u dirtay bulshada ku hadasha afka Soomaaliga iyaduna ugu baaqday in gurmad degdeg ah la soo gaaro dadkaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa ay xaaladoodu ka sii darayso qorulugud sidoo kale iyaduna dadka way ururinayeen oo waabay bilaabeen qabri huluulka daalig marka meel kasto ayba soo guurta joogto xoolaha halka kaga dhamaadeen ama ayba deegaan yihiin dadkii miyiga ama deegaanayso waxa fiican inay halka ay biyaha caagadooda iyagu la aroorayaan aan gaadiid iyo booyad midna u baahnayn inay ku soo dhawaadaan gudo iyo dibad ay qurba joog iyo qulqul joog haddaan qof waliba wuxuu haysto hurin dad badan bayna waayeen waxay horu haysteen wuxuu ka quudanayay laakiin hadda waxa muuqata dhowr boqol oo kun oo qof inay gacanteena ku soo baxsanayaan haddii alla yiraahdo in dadku waxaan lahaa qofka dollarka hayaa ha bixiyo waxaynu u baahannahay bil kasta
dhowr milyan oo dollar oo aynu dadka ku hayno waxaan odhan lahaa arrin degdeg ah xaalad degdeg aynu galnay dadka haddaynaan isku tashan oo inagu isu gurman dadku wuu inaga lumayaa iyadoo xoolo imanka aynu badbaadinayna ma jirto. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.